banaanbaxa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxa loogu soo horjeeday maamulka saddexda gobol lagu ololeynayay oo shirkiisa ka socday Baydhabo iyo waliba imaatanka maanta Baydhabo soo gaaray Shariif Xasan Sheekh Aadan boqolaal dad ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Baydhabo gaar ahaan afaridoodka magaalada iyadoona dad baxyada dhigayay ay isugu jireen qeybo kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo ganacsiga magaalada ayaa albaabada loo laabay waxaana dadka oo dhan ay ka soo horjeedeen imaatanka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isagu ka soo horjeeda maamulka lixda gobol oo uu madax ka yahay Madoobe dadweynaha banaanbaxa dhigay ayaa waxa gubay lagu baabuur waxaana wadooyinka ay ku gooyeen dhagaxaan badan oo gaadiidka ay mari waayeen iyadoo ciidamada ka tirsan amisan looga shakiyay in ay wadaan Shariif Xasan Sheekh Aadan loona diiday inay maraan wadada afaridoodka inta socday banaanbaxa ayaa waxa la maqliyay rasaas lamana oga qasaaraha ka dhashay banaanbaxan balaaran waa kuwan qaar ka mid ah dadkii banaanbaxayay oo ka hadlay waxa ay isugu soo baxeen waxaan taageersanahay oo naysanay waa lixda gobol ma taageersanin Sheekh Shariif waxaan rabnaa inuu wadanka qabansan iyo gobolka soo qaatay inuu lagu shaqeeynin annaga waa israacnay waa istaageernay lix gobol baan nahay afkay ka soo qabo toosan baan nahay waxaan u diidanahay in la aqoonyo oo dowlad madaxayna lagu cuno dooni mayna dowladaynu way dhisan tahay meel kasta oo la yaxtoosan yahay dooni mayna Abdulqaadir Xasan TV ga Baydhabo Janay